qodobka labaad ee inoo yaallay isna culaysana waxa weeye qorshaheenu hore u ahaa sanadkan inuu noqdo sanadkii doorashooyinka iyadoo dhibaatooyinka iminka islaascaalo taagan yihiin haddana waa khasab dalkan haddaanu doorasho gelin oo aan la dooranin madaxda ama madaxweynaha soo socda iyo ciddii kale doorashada taagan tahayba dee socon maayo dictatorkeena adhigaya in 5 sano mar cusboonaysiyo hadday dhibaato jirtana waa in muddo yar uu nagu daraayo aan loo dheerayn doorashooyinka waxay noogu xil saaran guddida doorashooyinka qaranka waxay noo keenayaan iyagaan uga fadhiyaan inoo keenaan wadadii doorashada si loo waqtiga la qaban lahaa iyo muddadii wadada la marin lahaa midna iyadoo waa cadaan imika waxaynu ku jirnaa qasab weeyaan doorasho galaa doorashooyin waxaynu ku jirnaa saddexdii xisbi qaran oo waqtigooda dhacay waa doorashada gali karin ilaa iyaga dib loo doorto waxa halkan oo taagan 10 urur oo certificate loo siiyay inay u tartamaan inay xisbiga qaran noqdaan oo iyaguna darka taagan oo wardee maxaa waqtigeena looga qaaday waxaan u baahanahay in isugu geyno inaynu degdeg guddida doorashada uga codsano bal inaynu sameeyaan qorshe aynu waqtigeena ka bixi karayno dhaqaalihii iyo amnigii iyo nabadii ma hayno ma isweydiinayna in xisbiyadii iyo ururada doorashadii galaan oo tartamaan oo 3 xisbi soo baxaan oo qaran ما جرى حزب أورانكرا أنا وحزب أنا هذا لا ترتاح معي ورضا وشرعي سيرفكت بحث سبتال بين سادرت سامرة السياسة أو مكسد حديث حزبي إياه شن توكلوا الرئيس صباحه شرعي حاسبا وحلا يرفع إيران وقرشها أنا إياه نار استهمي إياه نار عندنا عند كل ريحين دور الشلاطر كانوا سبعين إن كنت ذالو سجار من وقفسك على دور شدي iyaduna waa budaanta koobaado inta ay ka dhaxaysaa ka wad shan doonta iyagoon is hiifeen iyagoon is caayeen iyagoon dadka jahwareerin qodobkan halkaas dhigaya aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa qoladana waa hambalyeynaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh